كله وقت سيروتي أخذنا وقت وأربع عنها إن أنا واحد بدل بريمة كأدوانه وأنا واحد بدل كده يسمونه خدي السوشيال ميديا على صعته وحدرين إنسان تليرتا قيبته موضعه قيبته إن الموضوع إليه حواه كسي فقان هيان صاحبي دينتا مساجدي خيراتي وحبر الشدي إسلامي هيدنا كسي فقان هيان بل أرمدنا كسي كفان هيان أرنتا سنوار المصيبة انتي رأي أحد علمنا نتشوقين شخصيا أروح كفايدة فوائد ترى بدل ما أنت المال باك الشيء وحساءات سامي ويا شيء لما كلمة دود وأنا الشيخ أفضل كبري شيخ مصطفى إسماعيل هارون إلهي حفظه يا شيخ داهر وعبد وحن أفكس كبري شيخ داهر إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم شيخ داهر أفكس وحن كبري كان السلف الصالح ضدك السلف الأول سنة وحي هاي يحفظون العلم بالعمل علم يكون حفظيا عمل فل مركاسا waxaan xasuustay xadiis anoo yar aan xifdiyay oo aan markiiba dhaqan galiyay ilaa maalinta aan xifdsanahay waa xadiiska tahiyatul masjid ka sheekeynaya idha dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn nin sheekha baan salaad subax afkiisa ka qoray markaasaan duhurkii waxaan isku dayay inaan tadbiiqiyo oo amal galiyo duhurkii waa masaajid galay waan sunaystay laba rakaad baan tukaday maalinta laga bilaabo ilaa yoomina hada xadiidkii dushan ka haya cid marna weydiinin كان السلف الصالح يحفظون العلم بالعمل جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقدنا الشيخ كوريجنا ان شاء الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جميعا وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقهرين جامعة يمام الكيدة هي مقالة هي دتكيدة ومهد علمية انت كذب درسي كمان تلوقون دي وحكو سابسين هي أهمية الدين وحاجة البشرية إليه دينتا هي كالنتا ينولاشا وجرته أما مدنانتا دينتا هي بني آدم كسيدة وقباهين آدمه هو حقبالة دين لآن نولاشو إني كديت قطي لكن ما أنت وضعك الدنيا وكتشيره واحد مدادات بدن الدين تكسي فقاني يعني الشيران كأنما وصفك وقرآنك كل شيء مكي النبي ومكتشوه عليه الصلاة والسلام فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة إلهي وحلي محاد عيا دين توقتش السنة وحاد مودا فرو ضي قول لي بحريه فرق وادمر دبديته وشيء حقنا وديريه كاسو اللي بحريه ولي ببد مدابو الله كنت المامية dadku markaasay diinta uga jeesteen caalamka aynu maanta ku noolahay nimanka siyaasiyiinta hogaamiya waxay isku dayeen inay cadaadiyaan diinta ama diimahaba dadka laga fogeeyo diin laawayaashana kor loo soo qaado yurub waa dhaweyd ilxaadka rasmiga ah ee ceeb u ahaa
imikana shaashadu iyagay u furatoo hadla dadka kale in shaasho ay ka hadli karaan ay helaanna waaba cidhiidhi hadda waxaan leenahay bini aadamku nowcan maa marka maadada la eego wuu tatawuray laakiin marka laga eego xagga akhlaaqiyaadka caqaa'idda cadaaladda dhaqanka marka laga eego weli wuu gabidhacayaa weli ma taabanin jid quman dulmiga badh markuu riixaba dhanka kaloo dulmiyuu uga dhacaya waxaan leenahay waxaa xaqiiqaa inaan falaax jirin tuu nebi maxamed ku dhawaaqayay mooyaane calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa waxay soo saarayaan xadiid axad asaxaaba laga warinayo oo ka warramaya wakhtigii jaahiliyada aanu islaamin anigoo inan yaraan aabbahay soo raacay buu yidhi oo dabeetana suuqii dilmajaas la odhan jiray ee carabta isugu iman jirtay anigoo marayna ayaan arkay buu yidhi nin leh yaa ayuha annaas quuluu laa ilaaha illa allah tuflixu oo dadkuna ku ururayaan oo nin aad u qurux badan isna daba socda buu yidhi oo timaha laba meelood ka xidhay oo le innahu saabi'un kaadib waa beenaale diintiisii ka tegay ha dhegaysanina ku leh markaasaan idhi buu yidhi aabakani waa kuma wuxuu sheegay inuu nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam ka hore kan dambe daba socdaana waa adeerkii buu yidhi abulahab baa la yidhaahdaa maantaa laga soo bilaabay ilaa maanta dad diinta ka fogeynaya baa jira laakiin waxaan leenahay waxa xaqiiqa ah aadanuhu mar kastoo uu diinta ka fogaado inuu lumo faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma ilaahay wuxuu leeyahay ciddii hanuunkayga raacda ma dhumo oo ma ambado mana kadeedmo aadanuhu imaa inuu waddadu ku socday ka lumo walow waddo fiicanba ha hayee meeshii uu socday meelaan ahayn jihaduba inay ka lunto ama maahe jihadaba inuu isleeyahay qabe laakiin uu kadeedanyo si loo gaadho aanay jirin haddaad diinka raacdan baa ilaahay leeyahay labada midna idinla kulmi mayso haddaad se ka jeesataan waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidhiya buu leeyahay baa ilaahay yidhi nolol cidhiidhiya kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaas min adulumaati ila annuur waxaanan u soo dejiyey diintan baa ilaahay leeyahay inaan mugdiga laydinka saaro oo iftiinka laydi geeyo mawduuciina waxaynu isku dayi doonnaa dhowr weji inaynu u dhigno kow waxaynu ka warrami doonnaa qofka maxay diintu ahmiyadda u leedahay ka fardin as a person qof ahaan ilaahay markuu qofka diinka haysta rabbi soo dejiyey iyo kaan haysanin markuu isdhinac dhigay rabbi wuxuu ku tilmaamay awaman kaana maytan faaxiyaynaah وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون إلهي وحلاه ومن كان ميتا أو ميتا نينك واحد انتي وفكر انتي آنو النولين با إلهي waxaa lagu qiyaasayaa qofku markuu diin la'aanta yahay kalmayiti inuu yahay sidii qof dhintay kaa dhintay aanu noolaynay oo aanu siinay if uu dadka ku dhex socdo miyuu la mid yahay baa ilaahay leeyahay ku guuraynaya meel gudcura ka gudcurka socdiya kaasi miyay siman yihin oo weliba gudcurkaa marnaba aan ka bixi karin kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun saasaasee loogu qurxiyey baa ilaahay leeyahay kuwa gaaleed waxay camal samaynayaan way isla quman yihin in aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu ilaahay wuxuu leeyahay kuwa yidhaahdaa allah noo rabbiya
ee dabeetana eraygaasi ku qumanaada waxa uu sheegayo kuwaasi nolosha intii tagtay muruga kama hayso inta soo socotana cabsi kama hayso qofka bini aadamka labada hadduu ka nabad galo wuxuu ku nooliyay nolol satisfaction nolol fiican nolol xasiloon nolol mutmaina hadduu qofku ka nabad galo tiraanyada hore wixii uu soo mariyay taariikh madow uu ku ciilqabo ciilqabka hadduu ka magan galo markaa uu ka magan galo nolosha soo socota iyo cabsideeda iyo warwarkeeda labadaa midna haddaanay jirin qofka bini aadamka xaala mutmaina buu ku nooliyay diintu halkay bini aadamka ugu jirto taariikhyahanada dunidu markay ka warramayaan ama qolada archaeologigu waxay tilmaamaan aadanaha taariikhdiisa oo dhan inta la hayo lama hayo mujtamac diin laawo ahaan jiray mujtamac kasta waxbuu caabudi jiray walidalik ayuu Plutarch taariikhyahankaasaa wuxuu tilmaamayaa dunida waa la arkay buu yidhi magaalooyin aan qusuur iyo daaro waaweyn lahayn dhul aan masaanic iyo lahayn xusuun lagu ilaaliyo qalcada lahayn laakiin fi taariikh lama hayo buu yidhi magaalo bilaa macbada meel wax lagu caabudo magaalo aan lahayn ma jirto axad almulxidiin almucaasiriin ayaa wuxuu qoray buug uu ku tilmaamayo gene of worship baan raadinaynaa buu leeyahy malaa geneticska qofka bini aadamka geneskiisa malaa mid baa cibaadada ku saabsan buu leeyahy yani sida bini aadamku ugu dhegan yahay inuu wax caabudaa waxa ay tilmaamaysaa buu leeyahy masaladu DNA-ga inaynu ka dhex baadhno oo haddii la baadho malaa gene cibaadada ku saabsan inaynu heli karnaabay u muuqataa buu leeyahy siduu bini aadamku ugu dhegan yahay masaladan ay ahmiyaday leedahay waxaad sawiri kartaa haddaynu xagga kale iska taagano idhaahna marka la diin beelo maxaa dhaca soomaalidu waxay idhaahdaan calaf yar iyo ciidan yarba marka la waayaaba la tabaa qofku markuu nicmada ku dhex jiro uma muuqato bini aadamka haddaad tidhaama nicmaysantay qof walba inta ka maqan baa nimco la'ah imika intiinani hor fadhiya waxaan rajaynaya inaad wada caafimaad qabtaan laakiin saaka kuma is idhi wallaahi nicmaad haysaa waad caafimaad qabtaa maad xasuusan waad kacday unu de sidii loo ordi jiray umaad u oran laakiin inta dhakhtarka joogto haddii loo tago iyaga waxay u muuqan lahay adduun nicmadiiba inuu caafimaad qab u yahay maninunbaa intuu iska soo kacay saaka caafimaad qab ku socdaba iyaga warwarkoodu yahay marka aadanuhu inta badan nicmada markuu hayo aad uma dareemo dad yar baa dareema bal haddaba aan diinta xaggan dhigno oo diin la'aanta sifayno qofku markuu diinta beela maxaa dhaca jariidad la yidhaahdo Rosal Yusuf liberalismka jaraa'idkan faafin jiray masaarida majalla weeyaan Rosal Yusuf la yidhaahdo ayaa maqaal qortay mid wariyaasheeda ka tirsan ayaa waa hore tegay Scandinavian waddankan Sweden la yidhaahdo tegay dabeetana waddanka Sweden waa wadannada ugu barwaaqaysan marka dunida barwaaqooyinkan la sheego la eego waayo waa waddan dawladdiisu barjadka ugu badan ama wasaaradda ugu lacagta badan leh dawladdu waa wasaaradda shu'uun ijtimaaciya ku saabsan danta bulshada wasaaradda ka shaqaysa wasaaradda labaad ee ku lacag xigta waa wasaaradda waxbarashada halka dunida kale laga yaabo wasaaradda difaaca iyo amniga iyo kuwaas inay yihiin kuwa lacag badan leh marka waa wadannadii bilaabay walfeerada tan iyo caafimaadkan bilaashka iyo waxaan tirada badan leh bini aadamka la siiyo qof walba waddanka degan inuu goor helo wariyihii intuu soo noqdo wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ahluljanna laysuu sucadaa buu yidhi ahlu jannuhu sheegaya waa reer Suudaan ahlu janne saciidiin maaha buu yidhi dad badhaadhay ma aha waayo tusaalayaal aan bixiyo dunida reer galbeedka ee diinla'aantu ku badatay waxaa aad u badan isdilka suicide qofku inuu isagu naftiisa gooyo dadka isdila markaasi
si aan loo boorin arrintaasi oo aanay mujtamacu u ogaanin tacsidooda laguma qoro jaraa'idka waaweyn wadannada ka soo baxa haddaad bayjadka u dambeeya eegto 3-4-5 bayj oo dambe waxaa ku qoran tacsi dadkii dhintay dadkoodu tacsiyeynayay iyaga laguma daro liiska si aan dadka loo xasuusinin isdilkiiya waxa dawladdu waxay u sameeyeen hotlines qofku hadduu warwarkaasi ku dhaco bal waa intaasoo la badbaadin karaayo hotline-kaa soo garaac mar kastood garaacda waa lagaa qabanaya marka khubaro ama psychology ama culamaauddiin ama kanaba kaa qabanaya wax laysku kaa dayaya in lagu yidhaahdo bal horta u yaro kaadi kaagaadaa iskale wakhti yarna sii aynu yaro wada hadallo oo aad wax ku weydiinno dawlada ka mid a waxaa batay isdilkaa dabeetana waxay isweydiiyeen cilmi baadhistee loo samayn karaa dadkan inuguma filla dhowrkan qof ayna la soo hadlaayeen sidee baynu cilmi baadhistu samaynaa si looga hortago isdilka waayo mushkilad haddaad rabto inaad xallisho waa inaad gunteeda si fiican u ogaataa baadha waxay dawladdu qaadatay inquiry in la sameeyo dadka wax la weydiiyo siday u dhici kartaa waxay dhahdeen si qof kastoo isdila baynu u ogaan karno ha loo sameeyo dawladdu meel ay leedahay oo dadku isku dilaan dawladda markaa waxay samaysay manxar bashariya halka adhiga lagu qalaa taqaanin soo maaha meel dadka lagu qalaa loo sameeyey wixii dhimanayaa meel ay yimaadaan manxarkaa bashariga aad imanayso laba waxba waad ka helaysaa waxaad ka helaysaa dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kuu sheega sida fududee adigu aad ugu dhiman karto sida ugu fudud ee nafta lagaaga jari karaa dad sidaa yeesho dad saa yeesho dad saa yeesho kaalmadii dawladdana waad helaysaa nafka goynta ee nafta lagaa gooyaa dhanka kale waxaa la rabaa inquiry in lagaa qaado in lagu waraysto bal sababaa kuu kalifaya isdilka kan in lagaa joojin karo in la ogaado in lagu daweyn karo in la ogaado dhanka kalena doorashada adaa leh laakiin macluumaadkaaga in la helo mashaakilka ijtimaaciga dadkii aad ka tegaysay bangiyadaad wax ka amaahatay dhibaatooyinka dhaqaale waxaana in lagaala xisaabtamo sidii lagaaga reebi lahaa idan waa waraysi iyo fududayn dil dawladdu markay meeshii samaysay qoraaga buugga qoray wuxuu leeyahay dadkii baaba kuyuga wada qabsaday kuyugii baa dheeraaday dadkii rabay inay isdilaan ayaa tiro batay dabeetana baarlamaankii waddankaa fadhiistay oo yidhi waa mamnuuc dawladdu waa inay xidhaa meesha tan waa in la joojiya su-aasha isweydiinaysa waxaa weeyaan waddan barwaaqaysan oo dadka jooga dhaqaalo haystaan oo problemsku yar yihiin maxaa keenay inay manxar bashariya intay samaystaan dadku uu kuyu u galo waxaa keenay khawaa ruuxiya naftu bini aadamku materialka dabadda ka xiga ma satisfy gareeya waxa satisfy gareeya inner bartkiisa waxa ku jira qofku waxa uu rumaysan yahay qalbigiisa iyo maskaxdiisa caqiidadu haysto nolosha siduu u arko wanaagga wuxuu u yaqaano waxa uu mutma'inka ku noqon karo kaas baa ayaa satisfactionkiisa keena dawladda way xidhay su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxaa dadkii jeclaysiiyey inay isdilaan maraykanka buwaagta ka soo baxda one of the bestseller bookska mid ka midaba wuxuu noqday ee buug ka warramaya sida ugu fudud aad isu dili karto su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamku goormuu u wada baahday sida ugu fudud ee uu isu dili karo inuu ogaado ilaa iyo buuggu uu ka noqdo bestseller book buugga ugu fiican in la iibsado ilaa uu ka noqon karo limaada yaxtaaja annaas in la isdila maxay dadku ugu baahdeen dadka waaweyn waxaa laga yaabaa inaad tidhahda mashaakil baa ka hor yimi kan baa ka hor yimi anagana muraahiqiinta teenagers adolescents dhallinyarada da'yarta ah ee soo baaluqday ama da'daasi joogta dhowr iyo 10 jirka ah waxay dhahdaan maraykan waa ixsaa'iyaad qadiima weliba kuwa kale
25 milyan oo da'yartaasaa ku nool nus milyuun ka mida 500,000 baa isku dayay inay istilaan 6,000 baanay u suurto gashay inay sanad kasta kaws kaga siiso waaba imikaaba noloshu u bilaabantay qofka weyni noloshu wuu ka daalay iyo dhibtaa ku badatay iyo waxbaan garanay kan hadda ay u bedbedleeda soo bilaabayba imika waxa ku kalifay inuu isdilaa waa maxay waxay dhahdaan da'yarta u dhaxaysa 15 jir ilaa 19 jir geeridooda saddexda waxa ay u dhintaan waxa ka mid ah isdilka waxay dhahdaan da'yartaasi dilka dhimashadooda ugu badani waa 3 shay shil gaadhi iyo isdil iyabay ku tilmaamaan xawaadis ilijraam homicide gaangiskan yaryar isqaarajinaya iyagu waa saddexda sababood ee ugu tirada badan lee da'yartooda laysa isweydiinta waxaa le markaa haddaynu idhi kuwaasi waa 15 jir ilaa 19 jir 2016kii ixsaa'iyaad kale ay sameeyeen waxay ku tilmaamayeen 15 jir ilaa 29 jir waaba shayga labaad ee isdulka ugu badan ay u dhintaan walidalik hayu qoraga la yidhahdo Colin Wilson baa wuxuu leeyahay isagoo sifaynaya magaalada la yidhahdo New York ayuu yidhi waa qataa'un jamiil lixaala min atacaasa buu yidhi waa dabool qurux badan oo xaalo hooga qarinaya buu leeyahay waa meel lagu baaba'ay buu leeyahay laakiin fayskooda qurxistay wajiyada dadka iyo lacagta iyo daaraha iyo dabaqyada iyo boorsada dunida ugu qaalisan iyo Wall Street iyo waxa kan markaad aragto waxaad leedahay halkan baa dunida kala haysa laakiin wuxuu leeyahay dadka iyo siday u nool yihiin iyo waxay rumaysan yihiin iyo itminaankooda iyo muctaqadkooda markaad eegto waa very low aad buu hooseeya markaasuu wuxuu ku tilmaamayaa waa qitaa'un jamiil buu yidhi waa dabool qurux badan oo laakiin muxuu ku daboolayay xaala min atacaasa xaalad kadeeda ilaahay baa qur-aanka qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هلا يا ابن حولها يا عرورتا يا هيستان إلهي باب الدورين كوا كعذاب وحولها يا عرورتا لو عذابية واحد كقرن كرتا هزات اقتصادي markay dunida ka dhaceen dagaal burburadii waaweynaa dunida soo maray مثلا 2008 dagaal burbur baa dunida ka dhacay inagu de meel reer galbeedka ama qoyahan anaga wada hadlayno wuxuu ka waramay dagaal burburkii dunida ka dhacay iyo mashaakilku abuuray waxa xaggayga kaba dhicin baan ku yidhi waa xaggiina markaasuu yidhi maxaa dhacay in America only ayaa intaasoo kun oo baan kacay buu ku yidhi masaan ku yidhi anagu bangi kacba ma lihin marka hore bangiba kuma walaysaan oo wakicin neefadhiyaanu iibin jirno welina waa iibinaa waxba haba yaraatee naga khasaarayba dunida kama jiraan waxay dhahdaan dagaal burburkaasi markuu ku dhacay mujtamaca dadkii waxaystay in badan oo ka midi inna way waalatay inna way istishay yani hazadii dhacday markii loo adkaysan kari waayey badhka dadna waa isla hadleen oo way istileen dadka badhna way geeriyoodeen dhan labaadaan ka eegno in yurub afartii qof ee meel marayaba qof baa isticmaala muhada'aadka ixsaa'iyaadkooda wuxuu sheegayaa afar qof kastoo yurubiyana mid ka mida inuu isticmaalo maxay dawooyinka kan dhakhaatiirtu ay qoraan ee nafta xasiliya in la dejiyo qofka halka dadka diinta haysta muxuu nabigu tilmaamay cajaban liamri lmu'min ina amruhu kulluhu lahu khayr qofka mu'minka arrinkiisu yaab buu leeyahay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam
arrinkiisoo dhabi khayr buu yihi oo waayo cid kalena arrintaa ma haysata buu nebigu leeyahy walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa shakar fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabr fakana khayran lah hadday nimca heshana ma kibro ma qooqe ee ilaahay buu u mahadnaqaa haddii dhibi haleeshana wuu sabraa askartii maraykanka ee soomaaliya markii dhibtu ka dhacday timi qaybaa islaamay marka la weydiiye maxaa ku islaamteen waxa ugu weyn ay sheegaan waa maxay dad baaba'ay oo kadeed ku dhacay oo dhaqaala burbur oo aan dowlad haysan oo isdilaya oo nafta haysato haddana qosolayaanu aragnay bay dhahdeen yani iyagu qosolkaasi cajiib laah dadkani in qosolba ka soo baxa ma ahayn bay leeyihin there's something markaa qofkani waxan uu waayay oo dhan uu ku ilaabay isagoo nabad haysan oo dowlad haysan oo wax cuna haysan oo waxba haysan ayaanu haddana murugiya warwar ka muuqan bay leeyihin markaa waxba haystaa waxaan dadku haysanin buu haystaa weeyaan soomaaliya waxaan rajaynayaa wixii ka dhacay hadduu waddan iyadoo innagaba dacfi iimaani uu sababay waxaan inaga dhaco haddana inta iimaankeennu ku baaqi ahay ayaa waxay sababtay inaynu dad jiro oo weli nool noqonno inagoo waxba haysan dowlad iyo dal iyo waxba toona iyadaana jirin haddana dad jira inaynu noqonno caqaa'idaynu rumaysanay baa sababa bacd allahi subxaana wa tacaala inaad ilaah rumaysantahay oo aakhiro rumaysantahay oo qadarka rumaysan tahay oo calafkaaga inaan riwaayadnin rumaysan tahay waxaasee keenaya inaad mutma'in noqoto walow nolosha laga yaabo qaybteeda dhaqaaliya nabadeedba in kadeed kaa haysto waxa uu ka warramay doctor rushdi fakar nin la yidhaahdo waa geeriyooday alla naxariisto rushdi fakar waa nin culamada muslimiinta ka mid ah culamaa alfalsafa waladab fi alcaalam algharbina ka mid ahaa jaamacaadka reer galbeed switzerland iyo faransiiska jaamacadkooga ugu waaweyn buu labada professor ka ahaan jiray waana qoraac caan oo la yaqaano in 150 buug ka badan buu leeyahay oo qaarkood mawsuucaad iyo encyclopedia yihiin khabiirka ugu ballaanana qoray waxaana u yaqaaniin alfalsafa alwadciya afar fooliyamo ah positive philosophy waa nimay reer galbeedku raggii ka dambeeyeen ka mid ah ahna kuway u soo sharaxeen ee nobel prize-ka in la siiyo ayaa wuxuu leeyahay buug yar oo risaalo kooban ah oo nin wariyey uu waraysi ka qaadayo risaaladiisa waxaa la yidhaahdaa nihaayat alcamaaliqa aw camaaliqatu nihaaya wuxuu ka warramayaa filosofiyadii ugu dambeeyey yurube ugu waaweynaa laakiin marka kan isagoo khabiir filosofa falsafaadku u takhasusay markan kama warramayo falsafadoodii wuxuu ka warramayaa noloshoodu siday ku gebagabowday isku day inaad risaalada raadisaan wuxuu ka warramayaa noloshoodu inay ku gebagabowday mid isdila mid isa sumeeya mid intaasoo goor dil isku dayo oo isha iska soo riday halkan xabad iskaga dhuftay halkan uu ka soo boodo weli wuu noolaa markaasuu haddana ku celiyey marka wuxuu ka warramayaa badh inay waasheen badhna isdileen badhna isa sumeeyeen noocaasi inay u dhinteen intoodii badnay laakiin baabkaa laynoogama warramo ee waxaa laynooga warramaa falsafaday dunida ku soo kordhiyeen yani falsafaadka iyo raggan marka laga warramayo noloshooda gaarkaa way yartay intaad ogaan kartaa haddaanad adigu qof baaxito wax baadhaya ahayn laakiin waxaa laga yaabaa in lagaaga warramo in dunida aqoontu soo kordhiyey ama wixii uu doodaa ka sameeyey wuxuu ka warramay qiso aad u cajiib oo ah filosofkii falsafa alwujuudiya existentialist miyaa la yidhaha falsafa alwujuudiya filosofkii ugu weynaa wakti dhoweyn weeyaan maaha wakti hore waa gisgaard markuu haystay faransiiska madaxweynaha u ahaa ayaa maalin soo galay gurigiisii islaantiisii oo faraxsan buu arkay kow buu kaga siiyey islaantii oo faraxsan markuu arkay buu kow kaga siiyey dabeetana booliisku wacay oo wuxuu yidhi waxaa idinla hadlaya filosofer hebel waxaan dilay xaaskaygii kaalay oo shaqadiina qabsada
والله يا بوليسكي إلا كان كيوس الرجال الله الله يحل لي في الصفر هبل بنا نص الله عنك شيء ماشي بقى ما دين ورنتي سلانتي ديجا كشوم يوا كو سجين واتشوجا بديدا سكود اللي يقول لي إذن كو الشغل إني قبصنا والسويدي محاب عي سووا كشرة يسووا فلسفة الوجودية وحن ربيسان طاي نولشوا إني عرف طاي نولشوا عنا الدال كل ما وضع ماني سوى حاجة بيانا ما تشران marka waxa fiican bay yiraahdaan dagaal aad garanaysa gabagabadiisa lama galo hadda dagaal gasho laakiin aad ogtahay in loo meelo lagu soo jabinayo daado baqayo mid galiso ma dagaal aad ogtahay inuu leeyahay gabagabadiisa lama galo filosofku muxuu inoo sheegay marka wuxuu leeyahay nolosha gabigeedu waa cayaaya waad dhalanaysaa waad boodboodaysaa deetana waad dhimanaysaa waa inta halam mala waxa fiican buu yiri marka maalintaad ugu farax badantay inaad ka baxdo islaanta faraxsan uma arko waxaan sidii weeyii de kale way dhimanay maanta bal qatay malaaya maanta ka iskiisu bay yiraahdaan in madaxweynaha gaaro iska waa maalin way dowladtay odaygii baarlamaanka Yurub isku darkeedii dastuurkii loo dejinay waa nimankii maamulayay weeyay maalin way geeriyay ilaa bay yiraahdaan uu iska yiraahdo عار على فرنسا أن تعتقل عقلها عب بيتها فرنسا ما أنت إنه عقلي هذه حدائق هل جاي مستحاق عقلي لا هندك حنوصني ماذا حكيت كذا والملها هل جاي هلا بعض ما فرنسا إنه عقلي هذا حدوا عيب سببتها محمد اللي ودي اللي أنت مركي دعوه قفوا نلاش عرف بواركيا إن أنا قيمة لهين بواركيا وحيتهي بانشرين نحرستك بورته وايو كوغو نحرسانيا وكل ما وضب الله إذا دائما كبس كلمه إلهنا وحليه سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم كو إلهي آيات كي سبيري صم بكم بإلهي إنها يدقى بولائي عندها يدقوا وحاولوا وين محي وحبر شكله ضد لبض بيشوف مين سكي وحبر شذا دوايس سياد دنيا ولا كونتاكت كرين لحي أي الله ما يصير إلى يوم قلت المام يكوى بيني إن يهين كوى لبض بيالي ومدو صعنية إلهي عدو الدون والله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم آيات كلا إلهي وحكوت المامية أو كالظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور حلم لي باي لهيت المامية سيدي مقديو بد قنت كتشرة وموج كلا كسر رأيه قرآن كاكا ورمي لكن 20th century بقى اللي أقادي بده حسين موجودة جيران موجودة وحلوها يستوقون حاجة سلام مريا أي سوريش كو أقادي هنا جيران موجودة هوسط مريا إلهي وحلي وحال لمده ده بدنا افتينكم أكو صادعه هدي وجيران ضروري وسيس بين نقطة إفكا كله بدن كركيدا موجودة ككعيا ريفلكشن بيسميانو إفكي هدنا بد بيعلنيا إفكا أنت صاحبنا ويف لنجفتسكي بيو كلا بحن تضربا مدبا مال بوكو هذا مال مكاد جادو هدينا بركوكو دعو دي جادا ما كيكت دوايا عسانكو بمجرو عسانكو بما هذا يمجرو markaad si socdo around 200 meter meel hasna rajeynaya markaad gaadho all light oo dhameen u dhamaanayo ifbaanad waxba ka arki karin ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwa mugdiga ku jiraan inuu la mid yahay bal daruuri joogto oo mawjadi kacsantahay oo bad gunteed oo mawjad kale kacsan tahay hoosteeda kuwa ku jira hadduu farta soo saaraba ilaahay leeyahay uma dhawaanayo inuu arko
يعني إلهي وحصورين يا صورة عجيبة وتلمامسة مشى مجدجاد حتى جارسيسين يبصيص من الأمل إننا نكتشرين وحف نقوم كروح الوارك كراينا نكتشرين ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور بينه عندي أنا إلهي نور سيني إف سيني إف ما يسطه نلش الراحة وطمأنينة القلب نلش الراحة وين ورورك كاهر وين ماشي هذا الصعطاء قرنس ماشي هذا الصعطاء قرنس وين ماشي كتب قرنس قفك مؤمن كاهي وحيد هذا الفلسفة كلها فلسفة بني آدم ولي لحق سنين كلها سؤالها بيد هذا طبيعي غير معروف كلا يقاني جوابه هذا نستح هو البحث عن الحقيقة بينها وأي حقيقة من أين أنا حقان كيب حقان كالصعدة محان هلكن كقبانيا وبني آدم كسؤالا نلشي سكساب سنو يسويديني سؤالها سي أول ساينس كما جوابه ساينس كأنه ماتيريال كو انت بناكو حري كما جوابه علماء الفلسفة بيسكد ديير بحثيان ولا جواب لها وأي هي عند قرنسة ما جرته وأنا اللي هنا كان يحين إنه يروشها وحسب إيش وجوكتان حاجة سكت مالدين حاجة سكت صعطان وأنا دين صار يدب ما ندين حسابية جنية النار مبارد جينية تساك أنتي إن سؤالها كري قلبك كدجان ولذلك إنك مركي إنه أسترحضه قف كلا إسلام كو شرح وحلقيا وإن أدين بدل شرحضه إسلام كي محاسن تيسية ونابيس يدبتها لكن مركي الله قرآن تودك عدد الدين لان تقول عدد مد السلامات لهم حقو إسلام وحاول بدنا إشياء يعني وراحة نفسي إنه هلي وأدقى يقول لي قلبي جا حصلي بلا يدي سافي بيجي قرتي يقولوا marka waxa kale inagu wax laga yaabaa inaad istiraado qofka islaamka jeclaysiyo xadaarad oo lahayn tirbiya albaxnimo iyo new technology inuu la fahmo marka inuu wax sharxay laakiin isagu waxa naftiisa ku jira inuu dareenkiisu isbedelaaba waxa ugu weyn oo rabo uu arkayo ilaahayna wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala faman yuridillahu an yahdiya ninka ilaahay dooro inuu hanuuniyo yashrah sadra laabtiisa ilaahay u ballaariya يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله قفك الرب إنه اللميه يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مثال كان كلا إلهي بحين يوفرس قفك أن ربنا نحن النبي إلهي لله سلام نمضوا بلارته وفهمه كبعض النمضوا كالصغاننا laabta ciriiriyoonta oo jiq noqota xarajku waa markay meel wax mari waayaan noqota tusaalaha ilaahay wuxuu ku bixiyay wuxuu la mid yahay sidii mid cirka koraya imkay dunidu ogaatay markii ay cirubaha samaysatay in cirka loo baxo kullama kor loo sii socdaba inay yaraato maxay oxygen dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen hadday ka yaraato waa intan karoonuhu dadka ku laayay in neeftu kugu dhageysade neefta hadday kugu dhigtana dalaabta ku xiriiriyoomaysa oo diin raagaysa oo neef kugu filan baanad haysanin ilaahay wuxuu leeyahay kan diin la'aanta ku sugani wuxuu la mid yahay sidii kii cirka koray kaanama yasacdu fi samaa say laabtiisu u xiriiriyoomayso ay marka dambe jiq u noqonayso xaraj u noqonayso aanay xiriiriga u dareemayso aayad kale ilaahay wuxuu leeyahay waman yushrik billah ninkii ilaahay u shiriik yeela fakaannama kharra min as-samaa nin cirka ka soo dhacayo kale la mid yahay cirka haddaad ka soo dhacdo dee hawada iyo gravitationka ku wadaya no control adigu isma maamushid taas waxa dhacaysa inaad gabadha calayso oo controlku ka lumo qofku hadduu diin beelo controlka luma controlada koowaad lumana kuwa akhlaaqiga ugu horeeya kuwa akhlaaqiga baa ugu horeeya wuxuu la mid yahay mid cirka ka soo dhacay oo shimbiruhu goobayaan ama hawadu sidato meel daran ku tuurtay baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala ayuha alaxibba dunida dadka ugu saciidsan ascad innaasi fi lxayaa waa ambiyada iyo saalixiinta
الأنبياء والصالحون وضدك هلي الأمن النفسي والطمأنينة القلبية إن إلا بهان حصلان ما نهان دقان نرش فهمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بإلهي كوي إيمانك لغا هلي يعني إيمانك وذا كده الشرك يظلم يقولون قنار كله قواسان نبتقل يوسقناطي هانوصنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قواسان النولل في عنا وليسيننا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قرآنك وحا كعب وصب البلادان وقطع الله قفك الدين لب أفهمه إنه قف حصلون نقول يدقن إنه قف أمن نفسي قف هلي إنه نقول وحي إلهي كنت الماما يا من نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إيمانك معان في سينه هلي قفك الله الرب إنما وغير الدنيا دان إلهي معمولك عن تسكو شرته إسلام نمان الدين قاطي نبي محمد قائد كرفته عليه الصلاة والسلام سيدي دبا بني آدم كو قلبه كدقة قديمك عدعت كل اللي قلتاه أصحابت قرانين واحد تاقمته أما عقاب اللي قلتاه ميل صحارو وكنت دقري مرس 5 دقيقة مركا تاقمته ونفتح وغبصنا سوى دالس haddii se lagu idhaahdo meeshaa ka shaqee saacaddii baan $1,000 baad leedahay dhidid dhaanaanunbaa kaa imanaya laakiin waxba dareemi maysid waayo $1,000 baa ku muuqda yacni bini aadamku dareenka weeyaan waxa macaankana leh qadhaadhkana leh waa saad wax u qiimaynayso ee ma aha oo qura jidhku wuxuu dareemayo jidhku wax badana uu dareemayo oo dib u adkaysan karaa hadday maskaxdu tarjumo fiican bixinayso hadday shayga kan maskaxdaada iyo dareenkaagu tarjumo wanaagsan ay ka bixinayaan maadaama lagu yidhi $10,000 baad dhowr saacadood ku helaysaa tarjumada maskaxdu kuu bixinaysaa waxay tahay waar adkaysan in baa alla kaa dhigay mar dhowaad badhaanaysaa socankaa maaha nolosha qofka bini aadamka oo dhammina waa saatan janno iyo waxan markuu ka fakarayo waxa ilaahay kitaabka ugu tilmaamay dunida waxa ku soo marona wuxuu u arkaa inay tahay peanuts waxaan qiimo badan lahayn wuxuu u adkaysan karo xamili karo walidaalika nabigu wuxuu ku tilmaamaya dadka kii u dhib badnaa aakhiro jannada marka mar la geliyaa la yidhaha war weligaa dhib ma aragtay haba sheegin buu yidhaha weligay dhib ma arag yacni hal mar uu ku ilaaba kii adduunka soo necmaystayna marka naarta la dhumbiyo halkaa maruu ku ilaaba oo yidhaha weligayba dhadhamo ma arag ilaahay uu qofku ku xidhnaadaa rida nafsi keena saa daraaddeed baa ilaahay nebi maxamed markii dhibtu ku badatay walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin baa ilaahay waa ognay dadkani waxay dhib kuu geysteen iyo saa laabta kuu cidhiidhiyotay ma rabtaa laabtaadu inay furanto tasbiixsoo ilaahay tukabaa la yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja idan waxaan leenahay haddaad rabto inaad diin qiimayso xagga kalena eeg bal kuwa diin la-aanta ku dhacday waxa soo dhahay galbeedka maalan dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mida waxay idhahdaan child delinquency junuux ilatfaal dhallinyaro mujrimiin noqotay waa dhallinyaro oo da'da qaanuunka way ka yaryihiin waana gaangis wax dila kowbuu kaaga siinaya isla markaa qaanuunna qaban maayo waa 16 jir waa 15 jir waa 17 jir qaanuunkoodu dee marka 18 dhaaftaabuu ku qabanaya dan ninkani waana gang waa dropout waa dragiste waxbuu dilaya waxbuu boobaya waxbuu dhacaya mujtamacaadku waxay haysteen oo dhan buu khilaafaya qaanuunkooda oo dhan buu baabi'iyey
mana hayaan si ay uga hortagaan. walidalik markii dhallinyarada ay ku badatay khawaa qalbiga, jaamacadkan dunida ugu caansan jaamacad ka mid ah waddankan la yidhaahdo Germany, jaamacaddan la yidhaahdo Heidelberg University waa Baden-Württemberg gobolka la yidhaahdo jaamacadda ugu weyn, waa jaamacadka dunida cariiq ee magaca leh, bale waa jaamacadda ugu badan ay ka soo baxaan bay dhahdaan maamuladii dalka Jarmal dadkii maamuli jiray. Heidelberg University ayaa waxay yidhaahdeen dhalintii 17 jir ilaa 19 jir u dhaxaysay ee jaamacadda sanatul uula soo galaysay waa kadeedayn bay yidhaahdeen, dhib bay dareemayeen. marka waxaynu u baahannahay bay professorada yidhaahdeen jaamacadda in lagu kordhiyo maadad la yidhaahdo maadatu sacaada, koors in lagu daro ah koorska sacaadada la yidhaahdo. gobolka khubaradiisi 18 ka mida baa loo saaray inay dejiyaan maadad dhallinyarada loo dhigo oo u sharxaysa bal sacaadada iyo sida loo gaari karo. waxa ay sharxayaan waa maado 3 marxaladood oo kala dambaysa qofka la marinayo. haddaad contentiskeeda akhrido waxa laga yaabaa adigu inaad qosli lahayd waxa la isu dhigay iyo wuxuu yahay iyo waxa activity-ga la samaynayo wuxuu yahay. laakiin waxaan uga danleeyaa waqtigoo cidhiidhiya daraaddeed waxa ay danaynayeen waxay ahayd in dadku sacaado helo. macnaheedu waxa weeyaan dhallinyaro 19 jir 18 jir laga laayay farxad iyo sacaado, dabeetana waxa loo baadi doonayaa koors cilmiyeed jaamacaddu ay dhigto oo ardaygu qaato oo la yidhaahdo sacaadada ha la baro. nabiguna wuxuu leeyahay qad aflax man aslam waruziqa kafaafa waqanacahu allahu bima ataa. waxa liibaano guulaystay qofka islaama ee ilaahay kafaaf wax ku filan ku arsaaqay oo ku qancaynta la siiyey. maanta United Nations wallantiisa caafimaadku waxay tilmaamaysaa in every 40 second in qof bini aadam istilo, in every 40 second in qof bini aadam isagu istilo. waxay leeyihiin 450 milyan oo dadka ka mid ah ayaa idraabaad nafsiya casabiya qaba, psychological disorder iyo xanuun qaba. waxay tilmaamayaan haddana isdilku caalamul islaami buu ugu yar yahay marka loo eego dunida inta kale. waa cajiib, dunidaynu maanta ku nool ee caalamul islaami waa ugu problem badan. dagaalada dhulka ka jiraan waa dunida muslimka, faqrigu dhulka jiro, dowladaha mustabiinta ee dictatorshipka ee dadka laaya ee xidhe ee burburiya waa meesha ka jiro, dadka aan xorriyad haysanin waa meesha ka jiraan. systemska caalamul islaami ka jira waa damas corrupted buu ka mid yahay. waa wixii sababi lahaa in isdilku noqdo maximum. haddii si caadiya loo xisaabiyo waxay in la yidhaahdo inta muslimku dego ayaana dunida ugu dhimasho badan in la yidhaahdaaba ahayd sida loo jigaayo. haddana waxaa la leeyahay kuwaasaa ugu isdil yar. waay sababtu waa maxay? dadkii faqrigu hayay ee political instability-gu hayay ee dowladaha dictatorkii haysteen ee dagaaladu ka jireen inay iyagu haddana noqdaan kuwa u isdilka yar leh marka loo qiimeeyo la barbar dhigo kuwa kale. sababtu waxa weeyaan waxay rumaysan yihiin, sabab kale ma jirto. maanta Yurub iyo dunida waxa la isku dayayaa dadka in la madadaaliyo, dadka in nolosha la ilowsiiyo. bini aadamka bay yidhaahdaan xadaaradda maanta joogta laba siyood mid uun waa in nolosha lagu ilowsiiyaa. dhan waa in dragga lagu fasaxo oo da Yurub iyo North America iyo dhulkaasi dowladaha iyo dadku waxay isku waafaqeen toddobaadkii dalkoo dhan laba habeen inuu waalaado in yarina waddanka ilaaliso, 5 maalmoodna in lama yar qabay la isku waafaqay. waddanku 5 maalmood waa miyar qab iyo shaqo tag, 2 maalmood waa waali iyo matag iyo madax wareer. wasiirkii laga dambeeyay baad arkaysaa waana mamnuuc inaad gaari kaxaysaa. adiga ee darawalkaaga iyo wixii dhibana waa cabaysaa. waxaad ku qasbantahay markaa inaad tagaasida raacdo. waa iska aamino tagaasida waa la raaca. wasiir iyo madaxweyne iyo kaloo isku kaajayo meel yaallu baad arkay ama kharaansanoo taxi kuma tagay oo taxiilu leeyahay iga maydho bixi kharashkii mataga bixi.
ومدحدي ودك ماموليس دينك ودا نولادا إنكو مير قبنا وقروي نيبي يقو حقرتين بل لما دحنا إن لسكو ودا والله إن يرينا ودك يلالسو ومامولك إيو حراسة ودك قعدك كو هايستو انت سيهبي كاني وحبا عبي انت كالنا إني والدو دا هايستو مركا ودنada Yurub maanta saddex wax mid baa dhalinyaro lagu hayaa tanfiiskaasi awigii laba casha neefta laga sii daayo markuu soo karaba neefta laga sii daayo oo shanta kalena dawad xamaalaysa ilaa labada casho waalidu waa lacag bay joogtaa oo inaad lacagtii keentay sakhrada iyo daroogada ay waxay lacabo ama ma aha malaahida haddaad ka baxdo in ciyaaro lagu mashquuliyo ama ma aha muusik ka dhalinyaradu sida loo tanfiisiyo ama dadka neefta looga sii daayo politically maanta Yurub waa dadka in ciyaar bay ku wareersantay Manchester baa badisay iyo Liverpool baa ka badisay la isku haya oo habeen maalmo inta soo ka waramaya ka sheekeynaya inna heblaaya heestiya hebel baa soo baxay hees kala soo baxday muusik buu ka waramaya inna waa cabsantahay وقاب ضدك النفط اللي هو سيد داية ساري سدلي إلا ده مير قبنا سوى ده شيء ده وخطر مير قب كبضان وعندي عقيدة وضاني إحنا لنا إدنا الله طبعا كأجن أختي وقابا مركز الدين الآن تدعى أخلاق ده صين غطاه بني آدم كأخلاق ده إلهي باكو أبو روى من الفطرة هرتبك هوري يعني الحاد كي وحكا وحيابا قاركود واسكياليا البضن باكرة قفقوا وحو اسكياليا لو اسمر سنين وانا كرا عندك شبهات قالوا خلق الكوكوية ما قال لكن وحي نكور رمينا فلسفة للحادية كيسة مكا لقاطو مورالي والسيديه ما الله هيا مورالي اسكا وحلو قد السؤال قد بنايو إلا أن أخلاق فلسفة الخير والشر وين جبتا philosophical position أي تاجنتهاي وفلسفة كذا بيسا فلسفة للحادية وفلسفة عن رميسنين إلهي يا دنيا يا آخرية وحمطون الرميسنين دن محل صلينا يا نيتشه فلسفي والله شرمك هذا وعيني إن الأخلاق والرحمة والصبر والعطاء والعطف والإحسان حيلة ابتدعها الضعفاء لكي يستفيدوا من منجزات الأقوياء ويستعطفونهم الفلسفية دي وين اليد بي أخلاق يا نحريستا يا صبرك يا وحساسينتا يا سن نحريستك يا سمافلكو وتكتيك بيقول فقرضوا أي سميستو ضدك وحقاهستا الربا يلقوا ما على بيقول يعني ما دام انه الهي اخريه wax kala rumaysanay way dadka wax loo siinaya haddaad maxweydo deendhima buu ku leeyahay hadu noolaanaysa nolosha dheeraad baad ku tahay ولذلك markay falsafadahan kor noqdeen Yurub waaba isku dayday dadkan imka xuquuqda mucaawiqiinta hadda wad maqashan Soomaha dadkan handicapska Yurub waqtiga jira baarlamaanadoodu saxeexeen mucaawiqiinta in la laayo وقتيا جرى برلمانadoodu saxeexeen mucaawiqiinta oo dhan in la mudo inay wax dambe ugu dhalin uma taagayna mucaawiq dambe Nietzsche markuu caynka lahaa Marx nacsigeedu lahaa in al-akhlaqa hilatun ibtada'aha al-aqwiya liyastad'afu biha ad-du'afa isna laha dadka kale isna taagan akhlaaqdani waxana sheegaysaa waa taktiik buu yiri ay kuwa xooga badan burjuwaasiyiintu samaysteen si ay fuqarada ugu gumaystaan buulay Fyodor Dostoyevsky ayaa wuxuu qoray riwaaya uu bixiyay إذا لم يكن الإله موجودا فكل شيء مباح هدان إله شرين ده وحول بو حلال بو وحول بو بنايم إلا عيد ما يستفسر ما يساعد عيد ما مرة عيد عاد وقدم بيساهداني شرين وقانون كالدولة دنا ده كرلو مهم إمكا ما إنه ما وحي إنه كرلو من قانون كالدولة ده سيئنو
u ilaalino dadka inayna dilin mise waa shay khuluqiya akhlaaqaynu rumaysannahay wuxuu u arkayaa kuwadan maanta joogaan soo qabano مثلا لورانس كراوس وفيزياء النظرية متخصص كوه ملاحدة النور كي هذا أتوقع يلسي بوغضة كمدة أنا كبوغان قريلا إلى هذا وحلام با وحدة شاه أمركو عقل وكاتغي يعني كنا ما يفيسيس كهذا بوغ قريكوله من العدم من لا شيء شيء من لا شيء بوغ إلى هذا قري عدم كاوح كذا شاه كاس يبا ضد قالي من لا إله حمزة تروتست ميا لا ما قاعد يقول لي أنا المسلم أصل كيسو غريقي هاي مناظرة بمركز يعطي ضد بوح ويدي هل تعتبر زنا المحارم خطأ دكا محارم تاهي إني كلا زنيستان مدن ببابك ما وحن با ولا شافوا يدا يدا كوكن ما وحن با markaasuu wuxuu ku jawaabay aniga iima cadda wax gafo ku jira buu leeyahay akhlaaqda halkaasay maraysa markaa miisaankiisa khuluqiga wax ku qiimaynaya waa inaan wax gafi ku jirin waxaasay dadkii ku qosqosleen John Paul Sartre waa filosofkii wujuudiga ee ugu weynaa anin caan ahaa casriga wuxuu ka mid yahay waa raggii Nobel Prize ka diiday Nobel Prize baa la yidhi adabkaaga ku qaadanaysaa ماشي وحولي أركتيان كسي هرجيدا نوبل برايس كيدا ما ربو وديدي إنه قاطع جون بول سارتر وفلسفة الوجودية وقوة الله يقول بيان أيها وحولي هاي منك وجودي قابوا لي يعني الفلسفة الوجودية عدة آمسا نبقى دو أدق بيكوطة هاي مرة دوخر ما يستينا إلى هاي تشيرين سيدا ووهل أبو لي إمكانية للعثور على قيم في عالم واضح values أما أخلاق قصة ليسان قيمة الله قرنا يأينو هلا وعدب بولي يعني أصل كهدان دمين بولي أخلاق دون ولا دميسا ريتشارد دوكنز وهم الإله بوغان ليداني كقريب ملحد كعانكا بل هدا أفهينكو دان كشيكي كرنو وضاقي جون فلو دبدي أنتوني فلو دبدي أيها وحولي هاي وحصاقري تويتر ولي هاي في هذا العالم لا يوجد شر ولا يوجد خير لا يوجد سوى لا مبالاة عمياء وعديمة الرحمة من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين هدوانك لها الدين ما جرته بيو أدكتها انتو وحصوا شرحوا حولي بيو أدكتها inaad valueska difaacday akhlaaqda adigoo aan ku tiirsanin diin buu leeyahay diin la'aan iyo akhlaaq inaad isla heshaa buu leeyahay wakiilaha ilaahay ma jiro ayaa haddana wuxuu leeyahay diin la'aan iyo akhlaaq inaad isla heshaa waa adagtay been loo baahdaa ma jirta day diintu been tahay maxaa loogu baahanaya been looma baahdo David Berlinski waa isna فيلسوف ماثماتيشن ولبا لا ادري اغنوستيك سكو لا ادري وكون له الهي انو جيرو iyo inaanu jirin midna aanu garan maayo laakiin hal mid uu baan aqaanaa buu yiri waxaan aqaanaa saynis yahan inaanu cadayn karin ilaahay inaanu jirin saynis inaanu taa cadayn karin iyada waan aqaanaa buu yiri laakiin inuu jiro inaanu jirin midna garan maayo marka qoladan malaaxidadan kale لا علمك ساينس كان شيء يكسر هرجدا وحلي وبنتي ساينس ما عدين كره مسألة هذا أنا هو أدلة فيلسوفية عن كره يا مشرته أيها وحش شرح دفنسكي كان شيء جاي الرواية دي سيبو شرحية ده بتنوع التلمام ياون أنا قضية دوتي هدي إلى لماذا الله قطعه يدينك أخلاق ذنا ينفعشه رجال دوك نسبة مركل اللي ويديه وحصاقر تويتر بقري وليه هي الإجهاد فعل أخلاقي ومشروع طالما ليس هناك ألم لأن الجنين في بطن أمه هو أقل إنسانية من أي خنزير بالغ به المهين لسور لده
وفعل أخلاقيات ولي ووحفي عن وبنان mar haddaan islaamtuna dhib aanay arkaynin waayo buu yidhi ilmaha caloosha ku jira doofaarkaynu gowracna wuu ka liitaa buu leeyahy yani bini aadamnimada qiimo maaha hadhow baa lagu odhanaya ilxaadka waxa ay u qaateen xorriye iyo kan iyo kan iyo waa sheekay bareley kolba dhan laysu tilmaamayo peter sanger waa mulxid haddana waa filosofi akhlaaq fi australia بيتر سانجر وملحد استراليا لكن واستاذ الفلسفه الاخلاقيه ايا وحليها بني ادم كي حولها ان لا اسكو دراي رج يدمر السن نقضا انا قلبه ما اركبوا لي بني ادم كي حولها تلا اسكو درو واي رج يدمر السن نقضا وحقفو كجرا ميشه ما موقدا بولي مر هدان دد كان لا دبينين حيوان كان لا دبينين اركو اسك مباح بولي waxaan wadan leeyahay diin la'aan iyo akhlaaq la'aan bay dhashaa iyana waa qodob kii hore waliya bay dhalaysay iyo naftu inaanay deganayn ka labaad waxaan leenahay akhlaaq la'aan bay dhashaa waqtigu say ugu simi maayeen wax badan oo kala tilmaamo laakiin aan bal bulsho ahaan hal tusaale u bixiyo mujtamaca maxayut garanay qofku inuu kaliya ilaahay iska caabudo wax tarka ay u leedahay personally laakiin bulshada faa'iido ma u leedahay كبلشاهن كمجتمعهن ها يدنا الدين لا تو خطر ده بلشدو كبلشة والدين باش بلشة يعني فائدة وتو واحد قرن كرتا قرآن كهداد أخرده أنبياء دي إلهي صادري زمننا كلا نوع صادري دباتوين كلا نوعين يحللان الله صادري مشاكلات توي ما دانو قولا وضا نوعها وحل يدو حقبل وضان توحيدنا ددك ugu yeedhaan nabi shucayb tolkii dhibaato dhaqaale iyo boob kale ka jira oo loo soo diray nabi luut akhlaaqiyad kale ka jiray saalax ama thamuud iyo caad dhibaatooyin kale haystay qolo walba mashaakilkeedu mashaakil kale uu ka gedisanaa sida taariikhda bini'aadamku ay isu gedido haddana ilaahay markuu rususha diray rasuul walba waxa la yidhi waxaad ka bilowdaa inaad dadka ilaahay ku xidho وصوبت وامحي واحد هذا وفرها وير وفضل بني ادم لو رغو ومينسكا هديبه ودا wax lagu saxay jirto wada shortest way dawladda Mareykanka say noognahay January 1919 January 16 1919 waxay qaadatay inay dastuurkeeda wax ka bedesho ستقانين دستورada in wax laga bedela aad buu adagi dawladda in qawaaniin kala soo saarta waa fududay laakiin amendmentska waxa la dhahaa in dastuurka la bedela waxay ku xidhan dawladuhu criteria aad u adag dabeetana dawladda Mareykanka waxay dooratay inay dastuurka wax ka bedesho federal state dastuurkiisa in la bedelo waxay qaateen go'aan ah amendmentka 18 in la sameeyo wax ka bedelkii 18 lagu sameeyo dastuurka Mareykan intii uu jiray in la qaato qodobkaasi waxa uu sheegayaa in khamriga la mamnuuco marka aftaa dadweynaha laga qaado dadweynuhu way u codeeyeen kongresska la mariyay waa aqbalay senateska la mariyay waa aqbaleen dawladda saxeexday wuxuu noqday qadiyad dastuuriya oo lagu daro amendmentka 18 oo lagu qoray dastuurka dalka Mareykan khamrigu inuu mamnuuc yahay waqtiga qaanuunku soo baxaya waa January 16 1919 waxay yiraahdeen sanadna aan dadka siino oo January 20 prohibition ku bilaabmo mamnuuc isku waqtigaas oo bilaabmaya halkan sano dawladdu ha samayso marka wacyigelintii dadka marka wacyigelin baa la bilaabay iskuulada jaamacaadka madaarista meel kasta laga bilaabay waxa la bilaabay iclaamka iyo jaraa'idka iyo wax qorodhan lagu faafiyo waxa la bilaabay yani si kasto dacaayad dawladda ugu sameyn karto balaayin min al-kurbiyat baa la qoray meel galbeed si kasta loo sameeyay January 20 markii la soo gaaray mamnuuc buu noqday laakiin dadkii waxay bilaabeen waxay u bixiyeen blind pigs al-khanazir al-amya خنازير العمياء وحويا وورشدا عصب وسوق مدوبه وخبرق السمايو إيبيا
dawladdu markaa dagaal bay ku qaaday iyo xadhig iyo xabsi iyo waa la waday dawladihii kala dambeeyoo dhammi go'aanka waxaa la yidhi waa go'aan historiade ka noqosho ma leh dawladdu waa inay fulisaa waa qasbantay sidii bay lagu waday maraykan dhowr iyo 10 sannadood baa saa loo waday dawladda maraykan oo aan dilku badnayn 200 oo qof baa la dilay sabab ku xidhanta khamriga iyo dambiyadiisa 200 qof malaayiin baa la xidhay xabsiga la geeyey intaasoo ijraam baa dhacay markii dambe dawladdu go'aana bay qaadatay in la fasaxo 1933 abril ay haddana dawladdu dib u fadhiisatay dastuurka in wax laga bedelo dib loo bedelo hal qodob bay la soo hadhay federaalku oo ah khamri intaa leeg 100 milimitir ka badan haddii jidhkaaga laga helo dhiiggaaga haddii laga helo inaanay kuu bannaanayn inaad gaadhi kaxaysaa wixii ka soo hadha bay idhaahdeen stateska u madax bannaan state waliba wuxuu ka yeelaya federal dastuurkaa laga saaray state waliba waxbuu xarxariiqay adigu khamrigii waa la fasaxay aqoon-yahankooda buug qoray baa wuxuu leeyahay nin la yidhaahdo samuel mills oo buug qoray la yidhahdo learning about alcohol ayaa wuxuu leeyahay khamriga maxaa loo fasaxay ma cilmi cusub baa laga ogaaday ma aqoon baa soo korodhay ma wanaaggiisaa la gartay intaa midna ma jirta buu leeyahay aqoontu xumihiisu may sii kordhisay buu leeyahay inuu balaayo sun la fasaxay yahay ayuunbay sii kordhisay laakiin waa maxay almancu qad fashal buu ku gebagabeeyey mamnuucistii baa fashishay unbuu yidhi waa loo taagi waaye dee u taag weyna inaga sii daayay noqotay taariikhda dib idiin celiya 1400 sannadood ka hor waqti aan iclaam jirin oo waxaa soo dhimi jirin ummadaan saynis aqoonin oo jahli ku sugnayd oo jaahiliyadii carbeyd oo dawlad la'aan ahayd oo waxa ugu badanee dhibtuba ka haysatay ahayd addabt in la kontarooliba karo wadan fasaxa oon qaanuun ka jirin oo labadii dawladood ee waaweynaa qabsanba kari waayeen oo dad unduula oo isdila oo baadiya iskaga nool aan la xukumin oo khamriguna caadadooda yahay iyo dhaqankooda iyo ragannimo iyo kufaan uu yahay gabay carbeed oo macno sameeya lama tiriyo 3 shay haddii aanay muqaddamo u noqon gabay soomaaliga soo hoyaalay lama yidhaahdo dabeetana ma yidhaahda ninka gabaygii xalay saqdii dhexe maraan hurdaa wax igu soo degay saasaynu idhahnaa ama waxaan la mida unbaa muqaddamaadka inoo ah carab waxaa muqaddamo u ahaan jirtay khamro ammaanteed gabadh sifaynteed iyo faras ammaantii saddexdaasaa u ahaa muqaddamada gabay carbeed nin gabyaayo carbeed hadduu rabo inuu gabay isku dayo waa inuu saddexdaas sheegaa ummadday caynkaa u ahayd meelaha khamriga lagu cabo calan baa sudhnaan jiray alghaaya la yidhaahdo iyo xumuhu dhulka ay ka jiraan waxay tilmaami jireen ninka taajir haddaad maqasho inuu yahay ninka khamriga iibiya dadkaba wax kaloo lacag haystaa kaana maanay jirin ee lacagta ugu badan la ragga helaayihiin ragga khamriga saxaabadii caynkaa ahayd ee dhaqankaa ku noolayd ee saa ayuu nebi maxamed u yimi calayhi salaatu wasalaam ilaahay ugama bilaabin khamrigu waa mamnuuc 15 sannadood baa muslim la lahaa khamrigana la cabayay 13 sannadood ee maka la joogay khamrigu xalaal buu ahaa dadku waa cabayay muslimna waa ahaay madiina markii la yimi 2 sannadood oo kale buu iska ahaa xalaal oo kolba in yar yar laga hadlayay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana mar la tilmaamo oo risqa xasanka gaar loo saaro isagana gaar loo saaro iyo mar la yidhaahdo walaa taqrabu salaata waantum sukaara waa bal waqtiga salaadaad tukanaysaan u joojiya oo qofku is yidhaahdo maalintii haddaad cabto salaada kaa xumaane habeenkiisii cab oo ku seexo adigu 15 sannadood ba khamrigu free ahaa laakiin 15 sannadood dadka mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baa la barayay wax la barayay naftooda say u controli lahaayeen wax la barayay aakhirada iyo ilaahay rumaysanaayeen wax la barayay qur-aanka makiga oo dhan wuxuu ka warramay inta ugu badan leh ima alcaqiida wal akhlaaq bas inta ugu badan labadaas ka warrama wixii caqaa'id ku saabsan dadku waxay rumaynayaan aakhira iyo janno iyo naar iyo waxa jira adduun iyo suu yahay ama akhlaaqiyaadka iyo waxa lagu dhaqmayo
markuu aayad quraan soo degto la leeyahay maxay fajtanibuu ka dheeraada la leeyahay nin waliba koobku hayo iska quba odaygii ingiriisi caanka ayaa la odhan jiray Toynbee waa taariikhyahanadii ugu waaweynaa ee casriganba soo mara waa ninka ugu ballaaran kitaabkan xadaaraadka caalamka ka warramaya waxaan filayaa 720 civilization oo dunida ka mid ah ayuu u taariikhaynaya bug buu leeyahay la yidhaahdo civilization on trial muxaakamat alxadaaraat wuxuu kaga warramaya civilization on trialku dhibaatooyinka jira marka waxa uu tilmaamay dhibaatada khamriga iyo akhlaaqiyaadka la socda dunidu xal u heli mayso buu leeyahay ilaa bil islaam mooyaane muslimna ma aha isagu waa gaal ingiriis oo caalam islaami dhex maray oo taariikhda muslimiinta wax ka qoray oo berigii hore dowladda ingiriis qoladii la taliyaasha iyo mukhaabaraadka iyo beliya baaska u ahaa professorna ahaa markii dambana maraykan qaatay oo maraykan u ahaa khabiirkaasi wuxuu leeyahay dunida reer galbeed xal u heli mayso khamro iyo akhlaaqiyaadka xun ilaa iyo bil islaam mooyaane shuruurta waxa qura dunida ka baabiin karaa buu leeyahay waa islaam waxaan leenahay marka even though nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisaan technology oo dowlad qaanuun iyo booliis wadataanay oolin jaamacad iyo iskuulle iyo koorsooyin la bixiyaanay oolin haddana bini aadamkii intuu bedelo khamri ka joojiyey dowladda maraykan xoog iyo xoolo waxay lahayd intay isku dayday ayay khamriga u taag weyday maanta dunida waxaa soo socda dhowaan in la fasaxo daroogooyinka oo dhan hadda way bilaabantay hadda light drugska waddanno badan baa fasaxay waddannada qaarkoodna xagga caafimaadkunbay u fasaxeen waddannada qaarkoodna xoogaa meelo lagu kayfo unbay yidhaahdeen ha loo sameeyo halkaa lagu cabo waddannada qaarkoodna quantity-ga la iibsanayo unbay yidhaahdeen waa inaanu intaa ka badanin waddannada qaarkood meelo gaar iyo goobo gaaroo dunidu inta isugu timaado intaa haddaad ku jirto waad ku cabbi kartaa haddaad se ka soo baxdo ma cabbi kartid bay u sameeyeen waddannada qaarkood waxay dhaheen wixii aan tijaaro gelin yaan qofka lagu qabanin xogaaga isagu cabaya hadduu booliisku ku qabto oo aanad wax intaa yaa la iska sii daayo laakiin wixii baa mushtaruun ha la qabto way soo socotaa iminka intaasaa la fasaxay laakiin waxaan filayaa dhowaan in la fasaxi doono ma cilmi laga ogaadaa loo fasaxayaa maya dowladaha u taag waaye mancigiiba socon waaye idan bini aadamka waxa kantaroola wuxuu rumaysan yahay qaanuunku ma kantaroolo bini aadamka qaanuunku ma kantaroolo waxay yidhaahdaan waddannada waaweyn waddan ka mid ah ayaa 1978 leybku dumi nalkaa baktiyey 2 saacadood maqnaa goor habeena nalku hadduu duma maxaa dhacaya dee all alaamis waa seexanayaan wax waliba waa meel waliba waa free waad goobi kartaa weeyaan magaalada dhammaanteed waa caasimadaha waaweyn dunida mid ka mid a waliba caasimadaha baac mushtarka dhammaanteed waxay u kacday nin waliba inuu 2 saacadood ka faa'iidaysto inuu wax boobo bangi dhac dukaan dhac meeshan dhac meel walba boob waxay dhahaan laydhkii wuxuu baxay iyadoo tabaqa alwusta ay ku raran tahay alaabooyinkii waxa injineer iyo dhakhtar sida tv yar iyo alaab ku xambaarsan waayo dadka damayrta akhlaaqda dhaqanka diinta qabta ee maha qaanuunku uu kaa jiifaayo waxa doonto samee waxba ma tarayso waxaan leenahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma inama yatadakaru ulul albaab ayuha alaxiba waqtiguna wuu yaryahay dadkuna dee weel maaha wax lagu shubo ee waa la tilmaamaa tilmaamtaan bixinaya waxay tahay oo markaan soo koobo diinta bini aadamku kama maarmo waana sababta ilaahay inoogu soo dejiyey qof ahaan ugama maarantid akhlaaq ahaan ugama maarantid bulsho ahaan ugama maarantid qaanuun ahaan dhaqaale ahaan siyaasa ahaan baababkaa kama warramin laakiin waxaan ka warramo qura dadnimaduba inay lumayso in xayawaanka aan laga gadisnaanaynin oo akhlaaqiyaadka oo dham ay baaba'ayaan hadday diimuhu lumaan waana xagga iminka usii socoto kullamaa dunida diimuhu ama kristan ha noqoto ama yuhuud noqoto ama sii cadaadiyo ay sii yaraato
fawaaxishta iyo xumaha iyo dhibtaa soo socda oo qaanuunada ku soo biiraya dowladnimada iyo waxa kale kullama tadayunka dadku uu batana waxa yaraada akhlaaqiyadka bata marka dhaqanka fiican iyo waxa ka baawaya bini aadamka qaanuun ma ilaalin karo corruption ka qaanuun qori ma celiyo akhlaaq ba celisa diin ba celisa dhaqan ba waxa celiya sadaradeed qofna diin uga ma meelaan bulsho ahaanna lama kontrooli karo lama maamuli karo dadka haddii xerada laga sii daayo xerada diimeed hadday ka baxaan lama kontrooli karo si awgeed waxaan leenahay dadkiina aqoon-yahanka ah waa inay diintu muhiimad gaara idin yeelataa oo ay idinku dadka horkac u noqotaa si dadka diintooda iyo islaamnimadooda iyo aakhiradooda loogu hayo waxa ka dambeeya ka dhashaana waa fasaadu waaqaca reer galbeed cid soo dhadhamiso soo aragtoo la noolaatay maaha cid tv ka daawatay ama shaqo yar ka soo qabatay ile waxaan ka warramayaa qof la dhaqmo nolosha la wadaagay nolosha waxaad la wadaagaysaa markaad arday la noqoto la shaqayso dadku waxay cunayaan waxay ka fakarayaan waxay ku sheekaysanayaan siday dunida u arkaan siday wax u arkaan markaad arag waxaan tv-yada laga sheegayaa waa brotocollo waa system censorship soo maray oo protocol ah laakiin bulshada waaqiceeda markaad tagto wax kale aad arkaysaa taa macnaheedu maaha inay wada baabado yurub imika dhimanayso maya technology iyo xoog weli ay ku noolato adiga ay kugu gumaysatana weli way haysataa oo dhuqdhuqdaa ku tegi mayso laakiin waxaan ka warramayaa dadnimadii inay sii liidato dunida inta kalena intay dabada ku martaan hadday god ku dhacaan duniduna waa kula dhacaysaa هدان يجي يدك كلام لك بالبادئ صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين